iyo xubnaha baarlamaanka dhammaantood iyo shaqaalaha saxafiyiinta dhammaantood salaamaya dadkii ugu dambeeyay hadalka inay soconayay qodob kasta oo halkan ku jirana laga soo hadlay Soomaaliduna waxay tiraahdaa hadalka ana u haray maaha ee wax la yada maxaa u haray wax kasta oo oran lahaa rag baa si yiri laakiin waxaan ku bilaabayaa cutubka labaad maamulka shaqaalaha dawladda qodobka shanaad siyaasadda guud ee shaqaalaha wuxuu leeyahay farqadiisa koow qof kasta oo jamhuuriyadda Soomaaliland u dhashay wuxuu xaq u leeyahay inuu noqdo shaqaale dawladeed si waafaqsan xeerkan waxaana reebanta koor kasta oo ku salaysan sinji midab isir qabiil fikir cadaalad caafimaad qodobka markaan istul taago waxa in badan jirta in qodobo kuwan ka mid ah aynu aragno iyadoo ay ka socdaan xeerka shaqaaleysiinta shaqaalaha ay ka socdaan xeerkiisa wasaaradaha waxaan anigu oran lahaa wasaarad walba xeer kasta oo la qorayo marka hore waa inaynu u sameynaa wax dabagal ah oo aanu noqon xeer inta la qoro laga dhaqaaqo ama aynu ansixinayno hadda wasaaradaheena oo kale ama dhulka shaqooyinka oo kale nin kasta oo mas'uul oo fadhiya waxa uu inta badan wasaaradiisa ku urursan reerkiisa oo uu qortaa ama qabiilkiisa uu qortaa taas waxay ka hor imanaysaa qodobka qabiil inaan wax lagu qoranin waxa kale oo jira in isla qodobkan kan ku xiga uu sheegayo qofku inaan siyaasad gali karin shaqaalaha ay misna halka misna waxa ku qoran qofka inaan loo qaban karin fikirkiisa marka taana in la kala cadeeyo siyaasaddu waa fikir qofku fikirkiisa siyaasadda kamida halka fikirkiiba ku qoran siyaasadda ma gali karana waa qoran tahay labadana in la soo waafajiyo waayo in badan waxaynu aragnaa qof Facebook miskiin oo Facebook shaqadii looga eriyay Facebook inuu ama leek yar saaray ama uu comment qof wax soo qoray comment ku qoray iyadoo oo loo cuskanayo siyaasad baad gashay misna waxaynu arkaynaa in mataqaanaa gudoomiyihiisii shaqaalaha ama mas'uuliyiintii dawladda ka waaweyneyd intooda badan ay ku dhex jiraan iyagu siyaasadii marka taa waxaan oran lahaa halka waxa laga bedelo xeerkan uu noqon mid qabta oo keli ah qofka miskiinka ah ee shaqaalaha ah laakiin ha noqdo mid qabta ka miskiinka ah ee u simeeyeen ka miskiinka ah iyo ka gudoomiyaha oo labadaba waa in si uga wada joojiya salahan markii oo aynu wadnay dadka qaaradii way ku jireen muxuu ahaa shaqaalaha qaarna waa loo diiday oo shaqadii waxa lagaga eriyay inay ama calan qaateen ama xisbi ay taageereen ba shaqadii lagaga eriyay iyadoo kii gudoomiyihiisa ahaa ama kii ka weynaa ama wasiiradii qaar ka mid ah ololeynaya taa waxaan lahaa ka baarlamaan ahaan wixii dadka shaqaalaha loogu cadaalad sameyn lahaa waa aynu wax ka ogaanaa cutubka saddexaad qodobka 12aad wuxuu sheegayaa hay'adda shaqaaluhu inay noqoto caasimadda taa qudheeda waxaan leeyahay soo jeedin ahaan aniga waxay ila tahay wax kasta oo dawladda leedahay haddii caasimadda lagu koobo waxa halka qudheeda waxa ka baxaya waa dulmi baa ku jira oo cadaaladii gobolada baa ka baxaysa anigu waxaan oran lahaa maadaama hay'addan ay tahay hay'addii shaqaalaha ayna tahay hay'ad dhexdhexaad ah anigu waa soo jeedin ahaan xoran lahaa hay'adda shaqaalaha xarunteeda hal la geeyo gobolada kale sanadba mid hal la dhigo oo yaan lagu soo koobin caasimadda kaliya taasi waxay keenaysaa hay'adda shaqaaluhu inay xogaal u noqoto duruufaha ku gadaaman gobolada kale ee fog
ee aan hay'adda shaqaaluhu joogin shaqaalaha ka shaqeeyana uu aad iyo aad u yar yahay taana intaasaan usoo jeedin lahaa ta kale qodobka 19aad ee ka hadlaya awoodda guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha runtii qof walba mas'uul ah ama wasiir ha noqdo wax kasta ha noqdo markuu wax soo qorayo wuxuu u soo qoraa sidii meesha isagu weligii joogayo si uu dadka ugu xukumo laakiin aniga waxay la tahay sida hadda halkan u qoran tahay hay'adda awoodda loo siiyay inay tahay uu yahay madaxweyne yar taana soo jeedinteeda waxa oran lahaa qodobka lagu noqdo guddoomiyaha oo hal la muujiyo doorkii guddida kale ee kula jirta ama guddoomiye ku xigeen oo halkan aan ku arko qodobo yar yar loo soo qoray ama guddidu waa inay role ku lahaataa shaqaalaha la qorayo kala eriyayo waa inay noqotaa wax guddi ka soo baxay aan noqon karin wax qof ku tagrifalay ama markuu dee qof ay isqabtaan sidii doono u eri karo oo sidii doono ka yeeli karo qodobka 15aad farqada labaad wuxuu sheegayaa in madaxweynuhu ansixiyo guddida guddoomiyaha isaguna uu eri karo anigu soo jeedin ahaan waxaan oran lahaa guddoomiyaha commissionka iyo qaar kale oo ka mid yihiin guddoomiyaha maxkamadda sare oo kale in laga bedelo systemka ah in madaxweynuhu uu soo doorto maadaama ay dadka dhexu yihiin waayo waxay noqonayaan shaqaale uu madaxweynuhu keensaday haddii uu xilka uu ku saluugo sida uu isagu rabay u qaban waayaan wuu eriyayaa haddii kalena waa deynaya marka wuxuu ku qasbaya guddoomiyaha maxkamadda sare ama guddoomiyaha hay'adda shaqaaluhu inuu u hoggaansanaado madaxweynaha iyo siyaasaddiisa ama sax ahaato ama khalad ahaato taana waxaan soo jeedin lahaa in wax laga bedelo hadday suuragal tahay aad baad maasantay guddoomiye haddaba haddii madaxweynuhu sida aad igu saxday uu ansixiyo isagu marka hore uu soo jeediyo oo baarlamaanku ansixiyo waa in marka uu eriyayna baarlamaanka la soo mariyo oo baarlamaanku ogaadaa sababta lagu eriyay ninkani inay tahay sabab sax ah oo cadaalad ah iyo inay tahay ka horimaad uu ka hor yimi siyaasadda xukuumadda markaa talada haysa waa soo jeedin arrinta xogayaha dawladda hoose iyada dadkii hore kala mid ahay waxaan aaminsanahay oo aan soo jeedinaya in loo daayo in wasaaradda arrimaha guduhu ay soo jeediso waxa kaloo aan halkan ku qorayn aan doonayaa inaynu ogaano waxa jira agaasimayaashu inta badan shaqada waxay ka joojiyaan dadka shaqaalaha ah shaqa joojin wax la yiraahdo bay qoraan kuwa gobolada jooga iyo kuwa halkan joogaaba halkana waan ka waayo inooguma qorra marka waxaan doonayaa qofka agaasimaha iyo qofkan way isku dhici karaan de shaqaalaha miskiinka ee u shaqeeya awoodan agaasimuhu kaga joojinayo qofka shaqaalaha shaqada kaga joojinayo taaqudheeda haddii halka ku jirtana in lagu saxo haddii aanay ku jirinna in lagu soo daro de oo la ogaado sababta uga joojinayo qodobka 12aad qodobka 12aad waxaa ku qoran wasaarad kasta farqadiisa koowaad wasaarad kasta ameed kasta oo dawladeed waxay leedahay guddi anshax marineed oo ka mas'uul noqon doona dhageysiga dacwadaha gafka anshaxa wasaaradda
wasaarad kasta ama hay'ad kasta oo dawladda waxay yeelanaysaa guddi anshax marineed oo ka mas'uul noqon doonta dhageysiga dacwadda gefka iyo anshax marinta dhaqanka shaqaalaha. guddida anshax marinta waxaa magacaabaya wasiirka wasaaradda ama guddoomiyaha hay'adaha. halkan waxaa farqada labaad waxaa ku qoran guddida anshax marinta waxaa magacaabaya wasiirka wasaaradda ama guddoomiyaha hay'adda. taa qudheeda waxa aan door bidi lahaa soo jeedin lahaa in la cadeeyo oo ama loo daayo wasiirku inuu soo magacaabo ama loo daayo hay'addu inay soo magacaawdo si aan mataqaana ma cadda hadda ka awoodda leh ee soo magacaabaya. ta kale anigu waxaan odhan lahaa anshax marinta in loo bedelo in ay anshax mariso qofka shaqaalaha ah guddida shaqaalaha oo aan guddoomiyaha keliya ahayn isku dhan inay anshax mariso baan taana soo jeedin lahaa. qodobka 65aad ee ka hadlaya shaqaalaha farqadiisa koowaad ee ka hadlaya shaqaalaha fasaxa shaqaalaha wuxuu sheegayaa shaqaalaha inuu xaq u leeyahay 30 maalmood. anigu soo jeedin ahaan waxaan odhan lahaa qofku duruufo badan buu yeelan karaa sanadkuna waa wax badan 30 casho. anigu waxaan lahaa laga dhigo ha loo kordhiyo shaqaalaha fasaxyada oo ha laga dhigo 60 maalmood على الأقل هدي أنا سورة جلينين وشغالها عافمات كقبا كي بكان كها كبردي أمولي سوى حوالي جرهبي شغالها عافمات قبا كهذا ليا هلو كردي الشغال فصحة على الأقل هدي أنا لحظة معلومات لو قدي كان هلا قدي جو شن يأفر معلومات قضب كان sida guud duuduub ahaan markaan u hadlo wuxuu isugu jiraa saa ragga horeba sheegeen laba aan shaqo isku lahayn oo shaqaaliye oo isku jira sidii ragga igu horeeyay gurujo iyo nuur iyo ragga lamidka sheegeen anigu shakhsiyan waxaan ba odhan lahaa marka hore shaqaalaha dawladda waa soo jeedin shaqaalaha dawladda sidiisaba haddii aan la helaynin aan la dabagelaynin baalkan aan ansixinayno aynaan dabagelin oo aan la ogaanaynin sida cadaaladda uu ku socday oo wasiir walba iyo agaasimo walba oo meel jooga uu reerkiisa ka buuxinayo qoranayo anigu waxaan odhan lahaa saami qaybsigii beelaaba shaqaalaha laga dhigo totally haba laga guuro kan baan horta odhan lahaa waa soo jeedin. ta kale haddii aanay taasi suuro galeen waxaan odhan lahaa waayo dee waxaa jira reero dhan aan shaqaalaba lahayn reero dhan aan wasiirba lahayn reeradan aan wasiirba lahayn oo wasaaradba joogno cid wuxuu qortaan la helayn baa jira reeraan agaasimo lahayn baa jira marka waa la isku dulman yahay haddii aan cadaalad la helayn oo ay sidan ay ku socoto inuu ka warqabno inteena markhaatiga ka wadanahay ku soconayso anigu waxaan soo jeedin lahaa war si aan reerna u qadin saami qaybsi ha laga dhigo reer waliba intiisa qaleelka ha ku qaato isagu ha sii qaybsado taas waa soo jeedinta kale qodobkii agaasimaha mushaharka waxaan odhan lahaa agaasimaha keliya maaha laakiin rag badan oo qaranka shaqo u soo qabtay oo suuqa mataqaana marka laga heliyo suuqa dabisaarid ku jirtay baa jirta marka waxaan odhan lahaa taas si gaar ah looga wada hadlo agaasimaha keliya maaha hadda guddoomiyaha maxkamadda sare oo kale marka hadda shaqada laga heliyo dee suuqa fadhiisanaya sirtii dawladda dhan buu hayaa inagayna qudhayna maanta haddii la yidhaahdo kala dareerada suuqaynu fadhiisanaynaa shaqaale weynaynu deenana noqonnaa marka waxaan odhan lahaa taas si gaar ah ha looga fekero. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.